السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا معلم محمد إبراهيم halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadeen imtixaanaha inoo ah aan ku baranaynay QuickBook Offline-ka oo desktop-ka maanta waxaan rabnaa inaan isla active gareyno laba account oo aan hore casharka hore aan usoo active gareyn haddaan isla eegno meeshaan ku qoran notes-ka waa kan labadan afarta account ayaa casharka hore soo active gareynay cash iyo capital iyo purchase iyo sales waxaana mataqaana types of account-ka kuwan adiga mataqaana waxay ku jiraan by default ahaan ay ku jiraan bankiga iyo equity iyo cost of goods sold iyo income labadan mataqaana afarta account waxay ku jiraan mataqaana default ahaan kuwan adiga mataqaana active gareynaya oo ku baydi muxuu gacanta behind ku qoray waa cash iyo capital iyo purchase iyo sales markan afartan account hore ayaan usoo active gareeyay sida loo sameeyay casharka hore ayuu mataqaana casharka horeeyay ayaa mataqaana soo daawan kartaa ka fiirsan kartaa hadda waxaan rabnaa maanta inaan isla active gareyno laba account oo account-ka koowaad uu yahay activation of two features in la mataqaana laba mataqaana features active gareyno marka waxaad tagaysaa edit baad tagaysaa tan waxaad tagaysaa activation of inventory system baad tagaysaa dan waxaad tagaysaa mataqaana edit preference baad tagaysaa items and inventory dan company preference ayaa tagaysaa dan select ayaa leedahay inventory purchase muxuu ahaa order and active dan okay ayaa leedahay si mataqaana practical ayaa iskula arkaynaa haddaan isku soo laabano QuickBook waa kan markuu sidaa company-gu ay asaasan yahay afarta account waa soo asaasay halkaas ayuu mataqaana ayaa la tagay casharka hore kan ka hore ayaa ka fiirsan kartaa waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay edit marka edit ku dhufato waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay preferences dan marka benefits ku dhufato waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay items inventory oo meeshan waa items inventory waa laabti waa goods inaad soo mataqaana soo iibsan karto soona iibsan karto iibinaysana purchase and sales marka xagga markaad tagto mataqaana items and inventory waxaad tagaysaa meeshan ku qoran tahay company preferences dan mataqaana meeshan ayaad tig saaraysaa inventory and purchase order are active ayaa ka dhigaysaa dan marka active ka dhigto waxaad leedahay okay ayaa leedahay dan okay ayaa ka leedahay waa ka kii kood waa active gareynay ka labaad isla meesha way ku noqonaynaa waxa leenahay waxa dhahaysaa edit baa dhahaysaa edit marka aad waxaad tagaysaa preferences baa tagaysaa marka tagto meesha hadda waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay mataqaana payment dan waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay company preferences meesha ku qoran tahay use and deposit fund as default deposit to mataqaana account tan tigta ka qaadaysaa dan okay ayaa leedahay labadii account hadda waa active gareeyay hadda wuxuu diyaar u yahay mataqaana muxuu inaa wax kasta purchase and sale sameyn karo inta rabana laga soo iibsan karo inta rabana iibin karo markan si practical casharkan ku xiga ku qaadan doona hadda mataqaana iyagoo mataqaana note ana waa xagan ay kugu diyaariyay qaabka meelaha la marayo marka labada account mataqaana active gareynayso edit baad tagaysaa active mataqaana of inventory system waa edit laba jeer waa ku celiyay edit baad tagaysaa marka koowaad marka labaad preference items and inventory then company mataqaana preference inventory and purchase meesha muxuu ahaa click saarayay select okay baa leedahay talabaad waxaad tagaysaa active of the cash of sales waaye edit baad tagaysaa isla meesha preferences payment and company preference then use and deposit ayaa xasamaysataa muxuu ahaa wax ka qaadaysaa muxuu ahaa select waa ka qas unselect baa leedahay markan casharkan inaha ayaa rabaa inaan kusoo koobo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu casharka ku xiga ayaa mataqaana wax sameynaynaa mataqaana alaab soo iibsado aan iibiyo hadhown aan raadiyo profit-ki iyo loss-ki iyo mataqaana debit maxaa deen dadka kaga maqan maxaa deen lagu leeyahay maxaa cash lacag ku haystaa oo gacanta company-ga mataqaana ama muxuu company-ga aan lacagta haysto cash in hand waa imisa cash at bank lacagta bank ku jirto waa imisa waxaasoo dhan casharka ku xiga ayaa ku baran doonaa casharkan maanta intaas iyo cashar kooban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh